lama aha qaranka Soomaaliyeed in ay dawlad ajnabi ah intay calanka hal bedelo intay soo jeediso in ama laga hadli kara ama lagu fakari karaba ilama ah tuunkiyo jira muuqaal kala la arkay marka tuunkaasna run ma ahayn oo propaganda la fidiyay buu ahaa sida aan aaminsanahay muuqaalkan dambana aniga waxay la tahay fiiri mashruuc kasta marka la sameeynayo astaan buu yeelan karaa macnaheedu ma ahan qoladan wada tashiga haday astaan sameysatay macnaheedu ma aha calankeenni oo la bedelay waa macnaheedu saasan u fahmaya astaan qoladan ay sameysatay qoladan lagu magacaabay gudiga wada tashiga lagu magacaabay astaan ay sameysato oo gaar ah ay wixii meesha la keenay ma aha calankii Soomaaliyeedna ma midalaynin calan Soomaaliyeedna lagu ma riyoonaynin midan oo madaxweynaha ruuxa hayo waa runtii saasan anu u fahmay inuu documents ka waxa qoran uu leeyahay quraan maaha aayad quraan maaha oo waa la bedeli karaa uu leeyahay laakiin tuhmadii hadal waxa isqabsaday tuhmadii hore oo jirtay calaamadii meesha ku sawiran iyo calankii oo warqada uu ruuxayo calankii ku masawiran yahay marka dadka markay indhahooda ku dhacdo hadalkana ayna aad ula sii socon yani waxay u ekaanaysaa inuu leeyahay calankan waa la tii horaana tuhmad jirta laakiin waan u fahmnay inuu leeyahay documents halkan ku jira aayad quraan ma waa la bedeli karaa marka waana arrin sax wax weyn ma engineer hadii aad maqlayso su'aashani waa su'aal muhiim ah maadaama aad insider tahay xukuumadana aad uga warqabto mas'uul horena aad ahayd